بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالكينا قعم فران إي قلبي صافية وإذن سو دوينا يا سومالي وين وان إذن سلاما يا ميلول بود جوكتان مالي وناكسن. موضوع maanta ka hadlayo waxa waaye cafinta iyo ahmiyada ay u leedahay nolosheena inaan dadka cafino. ilaahay waxa waa adiga iyo aniga iyo kulligeen waa jecelnahay in ilaahay uu nacafiyo. saas daraadeeda waxa qurux badan inaad dadka aad cafisid. qofka qof cafiyana macnaheedu waxa waa ilaahay dartiis marka aad wax sameynaysid wax walbo aasaaskaaga ka dhiga ilaahay dartiis ما شلاينيست مركاسيتي مركات خوف كان عفينيست حتى عفينته وحوا إلهي درتيس أيانو عفي يعني إلهي أجر كيغ وحو إسينا يا مالنت قيامة وحاق مكادو ماي عفينتي عفيسي وحوا بري إلهي ميسانكا وكوسارا عفينت قورمي هورت إيمانيسا عفينت مركي لو دباتي إيمانيسا وين أدكتاي دad كان انت بدن حي وبدن تاي إنينا نس عفينين bulsho ahaan ma aqaan dhaqan ahaan cafinta wayna ugu yartahay anaga waxaad arkaysaa dad 30 sano wax isku haysto 20 sano wax isku haysto xataa yani Soomaaliya wadankeena guud ahaan dhibaatooyinka qabaa'ilada soo kala gaaray in la iscafiyo way adag tahay waa aragnaa qof walba wax buu tabanaya ilaa 30 sano 50 sano wax buu tabanaya haddaan la iscafinin waxa waaye Soomaaliya inay bog cusub ay furto isbadasho ma sugaysto waa asaaska waxa waa cafinti waa anaga markaa rabna inaan dhaqaaqno oon hore aan u socono waa inaan wixii hore aan ilowna oon bilaabna bog cusub oon sameeyna wax jadiid oo wanaagsan oo wixii hore aan iscafina laakiin anaga dhaqan ahaan waa arkay Soomaalideena iscafinta aad ay u adag tahay ma aqaan aadayna u adag tahay والله umadaha inta badan umada badan ka adagnahay cafinta markii loo dhinaceeda ma iscafin karno waay maxaa isku cafin kareen ilaahay naga dhigo kuwa qalbiyadooda ay adag tahay qof ayaa ku soo dhibaateynaayo tan ugu daran waxa waaye dadka kuugu dhow inta badan ayaga dhibaatadu kaaga imaata haweeney waxa soo dhibaateynaayo seegeeda ninka waxa dhibaateynaysa xaaskiisa walaalihi is dhibaateenayo family gudihiya la iska dhibaateenayo qof walbo qofku u dhow yahay meeshu soo dhaweysan lahaa meeshu maxay ahaatay oo naxariis jecel kula dhaqmi lahaa wuxuu arkaa cadow waa caroonayo waa xasdaaya xasidnimada waxa soo dhan oo dhibaateyntaas oo dhan asalku waxay ku haysaa xasidnimo ku haysaa waayo qofkaaneeti walaalka maadaama oo dadka kaaga dhow yahay ehel aad tihiin ama asxaab aad tihiin waay oo dhibaateynay xaasidnimada waa shaydaankii aad tusinaayo sas waay marka qofka kaaga dhow dadkana waxa waaye way adag tahay Soomaa inaad cafisid tijaa waxa waaye experience-geega way adag tahay laakiin ma impossible ma waa cafin kartaa wax walba waa la sameyn karaa adduunka way adag tahay dadka kuugu dhow markay dhibaatada ay kaaga soo gaarto xoogaa way ku adkaanaysaa laakiin haddana waad cafin kartaa cafinta aad cafinaysid qofka ma aha mid adiga aad ugu daneynaysid asaga ma aha mid aad ugu daneynaysid mid adiga aad ku daneysanaay culamaa nafsiga waxay leeyihiin dadka aan wax cafinin cuqdad waay cuqdad gudaha ku jirta waa tan kaleenta waxa lagu leeyahay waa wax culus ay dhabarkooda ku sitaan waay cuqdadii ay wataan waay ma cafin karaan cafin la'aantaas waxay keenaysaa leeyihiin qofkii inaanu hore u soconin in meeshiisa uu taagnaado qofka ku dhibaateenaayo maanta oo dhan maskaxday waxay ka shaqeynaysaa qofkan asaga oo ku soo dhibaateeyay ayuu hadana maskaxdaadii si degan yahay aqliyan fiiri maskaxdaadii uu si degan yahay okay ani waa dhibaateys waay ani maskaxdeed uu si deganaanay aqligeyg waa inaan ka bixiyaa qurux waay ka bixi banaanka ku tuur qofka asaga oo dhan iska bixi gudaha ka bixi markaad maanta oo dhan waxa dhibkeed ka fikiraysaa qofkii yani ma ka filayeen Soomaha wixii ma qaadan kartid laakiin wax la sameyn karo waa oo la tababaran karo waa oo la cafin karo waa qof walba waa la cafin karaa qofkan asoo ku soo dhibaateeyay oo waqtigaaga laga yaabo qaarkood inuu soo qaatay qaarkood waxa laga inuu maalkooda soo dhacay laga yaabo qaarkood waxa laga inuu dhibaato jir ahaan maskax ahaan u soo gaarsiiyay haddana asagoo intaas dib ku soo gaarsiiyay intaad ka daawoobi lahayd oo wali gudahaaga si degan yahay fiiri aqliyan aday dib kugu tahay Soomaa
maanta oo dhan asageed ka fikiraysaa hore ma u dhaqaaqays maanta oo dhan yani xataa maskaxdaadii intaa korin lahayd oo wax aad baran lahayd oo wax aad akhrisan lahayd asagii qofkii amba ayadii aad ku mashquulaysaa laakiin markaad cafisid ilaahay dartiisan aad u cafisid oo naftaadana aad balan aad la gashid naftaada aad tiraahid waa igu balan ilaahay dartiisan aan u cafinaya qofkaas waana igu balan inaan mar dambe aadan qalbigayga aadan soo galin iyo caqligayga oo markuu istiraahad aleylehe soo gal amba istiraahad soo gal qofkii haddii ay nin tahay iyo haddii ay naag tahayba haddii uu nin yahay iyo haddii ay naag tahayba aad tiraahid stop maku ogolaanaya aniga inaad qalbigayga aad deganaatid adoo isoo dhibaateeyey makuu deganaanaya makuu ogolaanaya inaan kaasii fikiro oo weli aad caqligayga aad sii qaadatid horee u soconaya aniga horee u soconaya marka cafinta markaad cafinaysid aasaaska ku ahaada liajlillaah ilaahay dartiisa aniga aan u cafiyo qofkan ilaahay aan ka rabaa in uu isiiyo miisaankeyga uu ii saaro xasanaadkeyga inuu ii saaro marka ilaahay dartiisa aan u cafiyey qofka ma ahan waxaan u daneynaya aniga gudaheyga u daneynaya waana run gudahaaga u daneynaysaa markaad qofka aad cafinaysid adiga hadda nafsiyan u fiirso tusaalan ku siinaya gabar ayaa nin soo dhibaateeyey ninkii ku dhibaateeyey amba wiil ayaa xaaskiisa amba haweeney soo dhibaateysay qofkii ku dhibaateysay waa kala tagteen nin waaye waa kala tagteen amba naag waaye waa kala tagteen qofkii haddii weli ay degan tahay ama uu degan yahay qalbigaaga yani jaceyl ahaan ma ahan laakiin waxaadan ogolaanin see aniga qofkan intaas uu iga soo gaaray see aniga aan ugu ogolaaday naftaadayaad garaacis waay see aniga ugu ogolaado qofkan inuu intaas igu sameeyo seen ugu ogolaado qofkan inay intaas igu sameyso oo nolosheeda ay la sii socoto se naftaadayaad hiifaysaa qofkii adiga ma ogid weli gudahaagii ku dhex nool yahay marka qofkan waa kusoo dhibaateeyey waay oo haddana ugu ogolaanaysaa in gudahaagi uu sii dhex joogo oo uu sii deganaado waa inaad cafisaa waa inaad ka saartaa gudahaagi si maxay ahaatay gabdhaha oo kaleente wiilasha xataa markaad qof aad kala tagtaan yani inta badan dadka ugu dhawa dhibaatooyin kala imaataa qof markaad kala tagtaan qof walba dhibaato kala gaari kartaa walaala kala gaari karo darisa kala gaari kartaa maxay ahaatay saaxiiba is dhibaateyn kara laakiin tusaalaha yarka aan ku siinayo waxaa waaye marka aad xaaskaagii aad kala tagteen xumaanteedii aad weli aad caloosh ku hayso amba ninkaaga aad kala tagteen aad xumaantiis weli aad ku hayso waxaa waaye qof kale ma soo galaayo booski waayo booski waa buuxaa gudahaagi qof kaleente noloshaadii ma soo galaayo adiga isma ogid gudahaagi waa buuxaa psychology ahaan yani gudahaagiyaa buuxo qof kale ma u ogolaanin inuu soo galo gudahaaga mana u ogolaanayso waayo qofkii hore weli aad ka fikiraysa ma aha jaceyl aad jeceshahay inaad ka fikiraysa laakiin waxaad diidan tahay inaad ogolaatid qofkan maalin maalmaha ka mid ah inaad la soo nooleed oo kusii dhibaateeyey oo hadda noloshaada ka baxay weli inaad kasii fikirtid maxaa ugu sii fikiray maxaad noloshaada aad usii dhuminaya qofkan waa ka baxay marka cafinta faa'iidada ee leedahay waxaa ka mid ah in aadan u ogolaanin qofkii inuu gudahaaga uu sii deganaado ma sii deganaanayo ani maraa i dhibaateysay dhibaatooyinkaaga si walba ha iga kaa soo gaarto nafteeda markaas laga yaabo inay daciif ahayd inay ku ogolaatay waxaa waaye cafintaas oodan cafinaynin nafsadaada dad waxaa jira dadkay cafinaya naftii ma cafin karaan tanaa ka mid ah maanta oo dhan wuxuu leeyahay amba waxay leedahay see aniga waxaas igu dhaceen see aniga qofkaas ugu ogolaaday inuu waxaas igu sameeyo waxaa keenayo cafin la-aanta koow ayada cafi nafteeda waan ku cafiyey inaad tiraahdo waa markaad muraayada aad taagan tahay qof walba oo bini aadan waa khaldamaya kii khaldamo waay waan ku cafiyey sida aad tahay ayaan kugu ogolaaday qaladkii hore waxbaan ka baranay alxamdulilah mar kalena maku celineen maalin walba waxaa muraayad istaag la hadal nafsadaada u sheeg inaad cafisay qofkaas khalaas mar dambe aadan ka fikireynin qofkii kusii dhibaateeyey amba kusii dhibaateysay inay gudahaaga ay sii deganaato xataa saaxiibada xunxunka markay ku dhibaateeyaan ay dhibaata idin soo kala gaarto ayadana saasoo kaleenta waay oo mar walba maxay ahayd lagu weydiinayo ood ka sheekeynaysid maya iska ilow xataa haddii lagu weydiiyo waxaas waa iloobay meesheeda ku dhaaf yani
dadkii waa isku yaqaanaan maano adiga hiblaayo maxaa idin kala dhex maray maxaad ku kala tagteen waxaa waay marka wixii aad ka sheekeynaysid wixii adigan waa soo xasuusanay waa soo gocanay sooma haddii dhibaata ay ku dulmisay oo dulman aad tahay marka iska cafinta waxaa waaye markaad cafisid qofka ha ka sheekeynin dhibaatooyinkiisa wixiisa wax ka baro shalay markaad saas u fiirisid wixii kusoo maray dhibaatadii qofkaasi ay kuu geysatay ama qofkaasi uu kuu geystay cashar ahaan u fiiri markaad saas daalacatid cashar ahaan ha kuu noqdo wax ka baro ma aha qofkii asagoo dadkii ayagoo kusii dhibaateeyeen inaad maanta oo dhan aad gudahaaga aad kusii heynaysid adaa dhiban soomaha adaa dhiban adi ma danaysanin hore ma u socon kartid marka cafintana waxaa waa ilaahay jecel kuwa wax cafiyo markaan cafinahayn aniga waxaan u cafinahaa ilaahay dartiis qofkaas maaha qasab maaha qofka inuu idhaho cafi ma ahan anaa rabo inaan cafiyo ilaahay dartiisaan u cafinayaa aniga waxaan jecelahay ilaahay inuu i cafiyo waxaan jecelahay khalad haddii aan galo in lii cafiyaan jecelahay anigana saas darteeda ayaan u cafinayaa ma rabo qalbigeyga inaan cuqdad aan ku haayo ma rabo qalbigeyga waxaan rabaa aan nadiif adduunkan inaan ka tago marka cafinta wax fiican waa oo aad muhiim u ah waa horumarkaaga iyo noloshaada haddaadan wax cafinin waxa waa horey ma u dhaqaaqi kartid marka isbar inaad wax cafisid bishaan hadda lagu jiro anoo ka faa'iideysanayo fursadaan shacbaanka calayhi salaatu wasalaam nabigeena bilaha aadka u jeclaayo ayay kamid tahay oo aada u soomi jiray oo aad maxay ahayd u badin jiray kheyraadka waxaan la sheegaa inay ku jirto habeen lagu magacaabo leylatul xukun ay dhahaan habeen nuska shacbaan saasay sheegaan culimada qaar oo ilaahay uu cafinayo adoomadiisa qaarkood maxay ahayd kuwa istikfaarsada ee mar walba istakfirullah dhaha istikfaarka mar walba badi mar walba qowa raxmad rajeynaayo ilaahay inuu raxmadiisa kusoo dejinayo maxay ahayd kulligeenana fursad waa soomaha mar walba markii ramadaanka uu soo dhow yahay dadku waxay dhahayaan cafi dadaa jiro cafi anigana waan ku cafinaya cafi waan ku cafinaya okay soonkii dhamaanayo maaha macnihi inaad sheekadii waa soo celinay fitnadii soo bilaabay maya bog cusub bilaab yani ha ku laaban wixii xumaan ha ku laaban dadka kaleenta dada is aqoonin cafi maxaa ma istaqaanin ma cafi ma qofkii wax kaala dhaxeeya amba aad isleedahay leeyahay waxbaad gaarsiisay ama aad gaarsiin kartaa qofkaaseeti cafi inaad dhahdid waajib waay cafi markaad dhahdidna macnihii maaha markii ramadaanka oo dhamaada inaad haddana aad soo laabanaysid oo sheekadii aad bilaabaysid maahan ilaahay waxaan ka baryayaa kulligeen inuu naga dhigo kuwa wanaagsan oo xumaanta iska reeba wanaagan isfara marka cafinta ahmiyadda ay leedahay lama soo koobi karo psychology ahaan lama soo koobi karo diiniyana waxa waay ilaahay ajarkeeda asaa ku siinaya markaad cafisid adiga xataa tijaabi wallahi raaxaad dareemaysaa markaadan qalbigaaga aadan qof wax ku heenin adduunkana sidiisa waxa qurux badan intaad ka tagi lahayd adoo qof dulmiyey adoo lagu dulmiyey inaad ka tagtid fiican oo beri markaad tagtid ilaahay hortiis maalinta la taagan yahay inaad istaagtid adoo qof dambigiisa wada waxaa ka qurux badan in adigoo dambigaaga la wada inaad tagtid oo dambi lagaa qaaday oo dulmane inaad ka tagtid fiican marka dulmiga wax fiicanna ma ahan cafinta wax wanaagsan waa marka maanta bilow bog cusub fur cafi koo ka bilow nafsadaada inaad cafisid ayaad cafi markaad awoodid inaad ayada dad waxaa jira aan awoodin horta inay cafiyaan nafsadooda marka ay qaldanto nafta way qaldamaysaa bini aadan waa soomaha inay qaldanto wax oo dabiici waa marka hadday qaldanto nafsadaada ha hiifin cafi sida dadka aad u cafisid u cafi ayadaa mudan soomaha way mudan tahay inaad u cafisid sida dadku u cafinaysid way mudan tahay inaad ugu naxariisatid sida dadku ugu naxariisanaysid marka koow nafteen aan ka bilowno aan cafina ayada haddii ay khalad ay gashay haddii ay khalad ay samaysay haddii ay wax soo khaladay aan ka tago wixii shalay yacni maaha noloshaada maanta inay hogaamisana ma ahan waxyaabaha ay cafinta ay ku horseedaysa waxaa ka mid inaadan shalay yacni isan kula harin ma kula haraysa markaad qofkii aada cafisid mararka qaar dad waxaa jiro dhibaatooyin aada waaweyn ee nolosha loo soo geystayaa jiro oo horey uga soconayo oo iloobaay waxay ku iloobeen waxa waa cafinta waay raal noqda oo ku maasan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisay videogan video xig inta kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaa